ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabanayaan noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank duruufadag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal waxaa hadda soo gelaya tartamayaashii ka qaybgelayay tartankan ee ka socday jaamacadda Hargeysa dadkana kuma lihi walaal waxaa iyaguna isla goobta soo gelaya ardaydii ka socotay jaamacadda Badar oo ka qaybgelaya tartankan iga sal ayaa dawrsiga ay baray darxuma badan baan qabaa dubkay iga waxaa ku shidan dabuku waayuhu isuray handoora mar baan lahaa damiir togan baan lahaa inaan dadka caawiyo tigito orno iminka waxa ay tartamayaashu gelayaan goobtii uu tartanku ka dhici lahaa magacayga waayaan waxaan nahay tartamayaasha jaamacadda Hargeysa khaasatan fakalka social work waxaan ka koobanahay 3 qof barbarkayga waxa taagan huda dhinacayan kalena cawo waxa ilaahay mahadiye inaan tartankii wareegay koobaad tartanka adeega bulshada Premier Bank maalgelinayso aan kaga soo gudubnay guul maanta waxaan u bilaabmay wareegii labaad ee tartanka adeega bulshada ee Premier Bank maalgelinayso waxaan rajaynaynaa guul insha Allah anagoo ah koox kamid ah kooxaha ku tartamaya tartanka adeega bulshada ee uu maalgelinayay Premier Bank anagoo waxaan ka soo baxnay wareegii koobaad baan ka soo baxnay oo ku soo goolaysanay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u gudbaynaa maanta oo taaganahay wareegii labaad oo isagana ka rajaynaynaa guul markana waxa goobta tartanku ka dhacaya soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaad ku soo gudubteen wareegii koowaad maanta waxaad galaysaan waa wareegii labaad waxaad ku tartamaysaan wuxuu yahay halkaas ku qoran tahay laakiin waxa ka horeysiinaya maxaad filanaysaa alxamdulillah horta xamadi oo dhan ilaahay sugnaatay noo soo wareejiyeen guul kaga soo hoyno wareegii koobaad guulna ka soo gaarno wareegii labaad horta waxaan filanaynaa in loo diro hawshii la mid ah walaal hamaha ka adkaato ama ha la mid noqoto waxaan rajaynaynaa inaan kartideedii aqoonteedii isticmaalo sidaan markii hore u isticmaalnay oo kartideedii aqoonteedii kaga soo bixi doono waayahay idinka horta alxamdulillah rabbil caalamiin wareegii hore gulubyaduna ka badnaayeen ka soo gudubnay ilaahay baa mahad iska leh laakiin waxaan rajaynaynaa hawshuna inay hawshii kale la macnanahaata la dhadhanahaata runaanti marka shaqaynsi waxa marka jeclaysanaysaad marar qurux badan ka dhalisaa insha Allah inay sidii hore ahaato aan bay ka qurux badnaatay dee xoog aan la shaqaynayaa baa rajaynaya insha Allah guul baan rajaynaynaa maadaama kii adkaaba ka soo gudubnay ilaahay kana noo fududeeyo insha Allah okay waa kana wareegii labaad bad galaysaan teamkan waxa ka socdaan jaamacadda Hargeysa teamkanna waxa ka socdaan jaamacadda Badar in halkaas ku qoreen waxa aad ku tartamaysaan okay wadino afaysa hawshan nasiibkayga nagu soo aaday noo soo baxday waxa weeyaan aan ku tartano hal gabadh oo darbi jiif ah inaan geeyno xarunta darbi jiifka ama aad ku geysaan reerkooda yaani qof darbi jiif ah inaan geeyno xarunta darbi jiifka ama aan u geeyno reerkooda marka waa qof banaanka jooga oo meel joogin hadda lacagta halkan ay ku xusan tahay bushqada waqtiga la siiyay waxa weeyaan sidii waqtigii hore 4 saacadood gudahood inaan hawsha kaga soo baxno bismillaahir rahmaanir rahiim halkaas ayaa runtii uu ku dhamaanayaa hawsheenu tartankiiba imka galaysaan waxaan dirin jeenay insha Allah guul iyo gobonimo dhamaantiinba assalaamu calaykum waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan hadda waxa ay gudagelayaan sidii ay hawshooda u qorsheysan lahaayeen
bandhigo ciilkiyo dacaskaana dhiibay markaa soo helna ma garanaysaa haddii gabadhaas marka hooyo leedahay hooyadeed baa cina waayo gabadh walba waxay ku asturan tahay gurigooda ma garanaysaa haddii aanay guri laakiin lahayn waxaynu gelina xaruntaan marka sirfiiska waxaan ku siinaynaa guriga hooyadeed iyo iyadii hooyadeed wax ka dhiman iyo wixii guriga uga socotay problemadii xidhan soo baadhina problemkii wixii dhacay processkeena weli maraynaa waxaan siinaa iyadii nolosheeda haddaan hooyo la lahayn gabadhaas ka hor haddaan hooyo lahayn qasab waxaynu ku noqonaysaa in horta ilmo hooyo leen raadsan laakiin weyna ma garanaysaa toos waxaynu gelinaa xarunta gabadh mudeeda ahaan gabadh dibad barata joogmi gabadhan ku qoran warqad waa gabadh dibad barata joogmi xarunta waa la ilaaliyaa laakiin guriga iyo hooyadeed yaa ku ilaalinaysa gabadh inta leegtay mudeeda dana ma garan laba jir baynu kaxayn hadin doonay laba jir waxaan ku oray kale qof nolosha ilmo yar malinayda qofka darbi jiif looran karaa ay jeedo adolescence labaatan jir baynu kaxaynaa inagayna leeg bis soo kaxayna gabadh weyn imsoo gabadha problems baa ka jira darbi jiifta lagaagma sheekeynaya xarunteeda waa lagu jirdilaa waxaa ku wada aragtay wixina bara ku dhacay gabdhaha u tageynay ee qaarkood lagu gubay inamadu gumaysanayeen haddana waa ogtahay haddana servicekii wixii u baahnay lagama way dayacanta keer badan kuma helaan security-gooda halkaas lagu sugaya ma ogtahay laakiin waxaas la guriga xaruntii rehabilitation maanta booqan garasa kii maxamed maanta booqanay waa laga saaray dumarka badanka waa laga saaray dawladda xukunta falanqayn iyo dood kadib tartamayaashu waxa ay isla qaateen sida ay hawsha u gelayaan dhowr meelood baan isku garanay soo maaha kiiskana kiis adag runtii dawladda dhinacyo badan buu naga taabanaya marka waxaan sameynaynaa dee meelaha intaan dooranay inaynu runtii hadda ilmaha gurgurnoon tagno ayaa la doonaya soo marka hawsha la faraaqaynaa hawlo badanna way noo yaalaan saasaynu inta kalanaynaa markaan ku qorshaysanay imkan hawshana waynu guda galaynaa hablo maadaama ka soo gudubnay wareegii koobaad oo aynu guul kaga soo gudubnay oo faraxsanay oo xamaasad aad ina hayso maadaama laynoo diray hadda shaqo kale oo ah inan yar oo derbi jiifa inaynu kaxayno amba gurigeeda geyno amba xarunta derbi jiifka geyno sidii hore ma kasii qurux badnaasa maadaama farxaddii guushii nala socoto bal afkaartina dhiib waxaynu ka helaynaa maan leeyahay anigu inanta yar suuqa meesha mise jaamac ay ugu badan yihiin wadada dollar store wadada dheer dooxyada meelahaas oo dhan baynu ka heli karnaa inaan da'da laakiin maxaynu qaadanaynaa runtii horta waxaan arkaa meelo badan baa jira intaynu meelahaba soo wada indhayno xog la hubo oo in mataqaanaa qofka dhinac walba laga eegay janab walba laga aynu soo qaadano da'na dee da ilaa 14 ilaa 12 marka maxaynu odhan karnaa dee da'daas maxaan ku dooran karnaa yani dad badan oo u baahan baa jirta ma aha da'dan sababtee baynu qaadanaynaa 12 ilaa intaas waa da'day ugu baahi badan yihiin teenagerka u baahan xanaano gaar inay helaan waliba habla ahaan inta markay da'da qaangaarka ku soo dhawday waan isleeyahay 12 ilaa meelaha hadda waxaan isku ognahay marka inaynu hawshii soo fulino si lillahi dastuurkuna wuu nagabay qiraa'aduna wuu natagay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskaana dhibay kolkana tartamayaasha ka socda jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay raadinayaan ciddii ay hawsha u qaban lahaayeen waxaanay baadigoob ugu jiraan inay helaan qofka ugu habboon daruurta kasoo lusha darxumo hoostaada iyo lur iyo dalandoolku maray dhinacooduna waxaa iyaguna baadigoobkii ku jira tartamayaashii ka socday jaamacadda Beder oo raadinaya cidda ay hubaan ama ay u malaynayaan inay u baahan tahay adeegan abay idin la tayriye waxaanu rabnaa dareen daryeeliyo nolol habboon waxaanu rabnaa dareen daryeeliyo nolol habboon daryeeliyo nolol habboon bismillahi raxmaani raxiim kiiska naloo dhibo waxaa inayro darbi jiifa inaanu ku celino laba option baa noo baahnaa ama laba talaabo ama inaan gurigooda ku celino ama inaan ku celino xarunta darbi jiifta waxaan u dhaqaaqnay oo ilaa saa ku soconay waxaan soconay waqti ah 6 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo sidaan u soo heli lahayn gabadhaas isla gabadhaas waan soo helay waan ku soo guuleysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا وحنا اللي شوكتها وحويان فاضمو عبد الحكيم داديد وحويان لحشير ميلهاس وينها ير كده عن أم دربية مجال هرجيسة شيبساتها وينها ير أن هيسنين دريالكي عربتك لمتكي هلين فاضمو hooyadeed ayaa haysataa hooyadeed iyo aabaheed way kala tageen aabaheed meelna kuma ogo meel ay ku tirsadaan ma jirto hooyadeed
waxay la seexataa amaba ay hoy uga dhigataa gidaarada magaalada Hargeysa marba meeshay doonto mardo waxay u hoyataa waxa u hoy ah gaajo kulayl dhaxan iyo waliba cabsi oo u dheer tahay amaba ragga ka waaweyn amaba inamada ka waaweyn darba jiifta ah oo tacadiyo dheeraada u geysta iyada iyo hooyadeedba Faadumo alxamdulillah maanta anaga gacanteeda ku jirta waxaan isku dayaynaa intii karaankeyga inaan wax u qabano waxaan ku wareejin doonaa xaruntan darba jiifta halkaasay ka heli doonto kaabayaasha nolosheeda oo dhan hadday noqoto caafimaad waxbarasho cunto hooy wax walba oo qof bilaadan u baahnaa saynu wada ognahay intan ilmuhu markuu leeyahay waxa weeyaan ahaan marka la eego wada ahaantu ilmuhu u baahan yahay inuu horumarkiisa ama tarbiyadiisa kor loo qaado waa xilliga behavioral change-ka waxa la yiraahdo lagu sameyn karo ama qofka dabcigiisa in la bedelo waa qof maanta aan arki karayna inay ugu baahanto ugu nugushahay inay hesho maanta hooy rasmi ah ama meel ay kaabayaashii nolosha ka helayso sidaas ay tahay maanta waxaan ku wareejin doonaa insha Allah dhinacaas iyo xaruntan darbi jiifta halkaasoo waxbarashadeeda wax walba oo kafaalaqaadkii nolosheeda ay ka heli doonto waana ilmo yar oo jecel kitaabka quraanka ama bayna quraanka dhigato alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacda ama bacda ugu dambayn oo anakoo ilaahay ugu mahadnaqaynaa ugu dambayn waxaan soo helnay inantii yarayd ay ahayd inaan ku tartamaynay ay ahayd inayna yaro darbi jiifa aanu soo helno oonu amba gurigeedii ku celino amba aanu geyno meesha darbi jiifka la geeyo shalay toole markii nala siiyey waraaqda bacda maghrib aanu u gudagalnay ilaa iyo maanta cabaar 10 barkii meelaha aanu soo helnay bin rabbil mawla runtii markii aanu doonaynay inanta yarto inan darbi jiif la helay aad bay u adag tahay waxaan ka soo helnay saldhiga dhexe agtiisa markii aanu runtii helnay iyadoo aad u baqanaysaan helnay oo aad uga baqanaysa dad kale inoo waxay dareemayaan dadkan inay libaax yihiin oo way ka baqanayaan oo markasta qof u soo dhawaado baqasho iyo didmay ka qabaan markaanu helnay falilahi alxamdi way nagu kalsoonaatay way iska quraacatay way iska faraxsanayd way noo sheekeynaysay xataa iyada meelo badan aanan garanayna tusaysan ugu lahay barta waad ka heli kartaan barta hableer baa jooga barta hableer oo kala jooga oo wadwado oo nagu faraxsanayd runtii markii aanu helnay waxaan isku daynay inaanu reerkoogii u tagno markaan iyada wareysanay kadib waxaan u tagnay hooyadeed waxaan u tagnay reer iska masaakiina oo iska danyara markii aanu wareysanay hooyadeed waxay nagu tiri yani hooyadeed wax u baahantay inay ubadkeed u soo shaqeeyaan way xanuunsanaysaa mana haysan yani waxay leedahay caruur kale oo iyaguna ka xareysa runtii markaa inanta yarna waxay door biday in la xareeyo inaan hooyadeed ku celino waxay aad ugu faraxsantay inay wax barato oo lagu xareeyo meesha darbi jiifka lagu xareeyo alxamdulillah rabbil caalamiin markaan helna ayaan kadib hadda waxaan u wadnaa aan u soconaa xarunta lagu dhaqaaleeyo ama lagu xanaaneeyo caruurta yaryar oo aan u soo dhameystirnay waraaqihii wixii lanooga baahnaa si xarunta looga qabto waxaan geenaynaa xarunta anagoo rajaynayna inaan ka warhayno xaaladeedana markasta la socon doono iyaduna ay bartaa ku nasan doonto runtii oo rafaadkii hayay iyo dhibtii haysay ay kaga raysan doonto bismillaahi raxmaani raxiim anagoo kooxdii rajo ahayn oo ka soconay tartamayaashii jaamacadda Beder waxaanu nimi xaruntii aan u soconay tartankaygu ahaa markaanu muna aragnay ay muna noo xal warantay ay meesha say tahay iyo xaalkeeda nooga sheekaysay ayay baahida u culus ay noo sheegtay waxay ahayd inaanay caruurtu haysan furaashyo sariirta loo saaro markaasaanu dib isugu noqonay intii karaankayga tamarta ayada ahayd soo iibinay oo noqotay 11 furaash walaalmudo naga gudoon bismillaahi raxmaani raxiim horta aad iyo aad bay u mahadsanyihiin hablahan oo ka socda jaamacadda Beder kuwaasoo ka mid ah tartamayaal uu Premium Bank u qabtay tartan inay ilma darbi jiif inta suuqa ka soo qaadaan ay keenaan xarunta dhaqan celinta ka bacdi isagiyo waalidkiisa ay isku xiraan ilmahaasoo inan ka mid ay shalay ugu wareejiyeen iyada oo ay wadaan gogosheedii iyo maryaheegii iyo wixii caafimaadkeegii check-in ay ku soo sameeyeen markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarig ibraahim aar waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubaarig waxa uu gudoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa imakana waa gudoomiyaha jaamacadda Beder waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad
ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maasterta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada london. ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada. ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada boorame ee loo yaqaano boorame job center. axmed cali xasan waa injineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda hargeysa. waa wasiirkii hore ee cadaaladda somalilan. waxaa kale oo hore usoo noqday wasiirka caafimaadka. waa kuma cabdirashiid yuusuf gaaxnuug waxa uu maaster culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka uganda. sidoo kalena waxa uu maasterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka suudaan. waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda hargeysa. sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay-adda african relief. geesteedana haddaynu eegno xamde maxamed xuseen waxay haysataa shahaadada master of international cooperation. waxa ay madax ka tahay tv-ga goobjoog. waxa ay sidoo kale guddoomiye ku-xigeen ka ahayd academic of art and science. waxay guddoomiye ku-xigeen sidoo kale ka ahayd ururka qorayaasha somalilan. sidoo kalena waxay ahayd madaxa xidhiirka hay-adda safe the children. iminkana waxaa bilaabmay inay tartamayaashu ay usoo bandhigaan guddiga garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen. waxaana hadda soo gelaya tartamayaasha ka socda jaamacadda hargeysa. bismillahi raxmaan raxiim. runtii aniga kiiskana loo dhiibo waxaa ina yaro darbi jiifa inaan dibadda ka xareyno. waxaana la siiyey labada option waxay ahaayeen inaan nan taayar ku celino ama gurigoodii iyo faamiligoodii ama aan ku xareyno xarunta dowladda xukuntee darbi jiifta. anagu isla markiiba waxaan go'aansanay inaanu qaadano optionka ah inaanu xarunta darbi jiifta ku xareyno. sababtan u qaadanay inaan xarunta darbi jiifta ku xareyno waxa weeyaan maadaama ay soo saartay duruuf baani oo ka soo saartay gurigii hooyadeed. haddii aan guriga hooyadeed ku celino budgetkina loo dhiibay inaanu ku fangareyno waxaan ognahay berri ka maalin ka dhamaanaya budgetkaasi isla suuqa inay ku soo noqonayso. saasay tahay waxaanu qaadanay inaan xarunta darbi jiifta ku xareyno. labada option lisabshakaasanu qaadanay. isla markiiba waxaan dejinay kriteeriyooyin ama ujeedooyin ama shuruudo aan kusoo xulanayno gabadha yar ee lagu yidhiday xareeya. gabadhaas waxaanu kriteeriyooyinkayga waxaa ka mid ah inay 13 jir ka yaraato. sababtan u qaadanay inay 13 jir ka yaraato waxay ahayd maadaama geedku intuu yar yahay la toosiya ay uga baahi badan tahay cid kasta in mustaqbalka inanta yar la dhiso. kriteeriyada labaad waxay ahayd inay jinsiyadeedu noqoto Soomaali. Cosmat waxay ognahay inay suuqa ka dawarsadaan ama ay darbi jiifta u badan yihiin dad jinsiyada kala duwan haysta. saasay tahay in hablaheena Soomaalida aan jinsiyadooda Soomaalian ka dhigno. kriteeriyadeeda saddexaad waxay ahayd in inantaasi yacni maadaama qaadanay inaan gurigeeda ku celin inaan hoyba lahayn. haddaba aniga ka duulayna shuruudaha yaga waxaanu liis garaysanay meelaha laga heli karo darbi jiifta. goobaha laga heli karo darbi jiifta aad bay u badan yihiin magaalada Hargeysa. waxaa ka mid ah fooqa jajabka, waxaa ka mid ah meesha xabuubta lagu soo rogo ee dardhiga, waxaa ka mid ah dooxyada ka mid ah, waxaa ka mid ah hodheelada hambooyinka u dootaan sida Somaliland iyo Nasiba. waxaa ka mid ah masaajidada ay harka u doontaan ee hoos seexdaan sida Masjid Jaamaca iyo Ibrahim Dheere. haddaba markaanu liis garayno waxaan nidhi intaasoo goobad kama gaadhayno ee aynu caawa u duurgalno ama aynu guraabahalayno sidii aynu soo heli lahayn goobo ka mid ah. waxaanu u dhaqaaqnay goobihii. waxaanu ka horreynay dooxa weyne Hargeysa. observation baanu bilownay indhayn anagoo deedeyna. runtii waxaanu kula kulannay halka hablo yaryar oo darbi jiifa daadaan u baahnayna laakiin kriteeriyadeedii may buuxin. waxaan usoo dhaadhacnay suuqa weyne Hargeysa. halkaan waxaan kula kulannay laba hablood halkuwaasna kriteeriyadeedii may buuxin. halkaa waxaan kula kulannay afarkiis habeennimadii waan isku hoyanay. waxaanu soo baxnay subaxnimadii 5tii subaxnimo oonu usoo kicitinay magaalada Hargeysa. halkaasoonu goobihii ka duurgalnay ama aanu tagnay goobihii aanu ka heli lahayn hablaha yaryar. sidoo kale waxay nagu qaadatay waqti fara badan inaanu helno because waxa ku badan darbi jiifta inamada. hablaha way adagtay sida loo helo. waxaa naloo sheegay in habluhu yacni tacadiyo fara badan oo inamada u geystaan darteed ay isqariyaan ama ay adagtay sida loo helo. runtii way nagu adkaatay inaanu inan helno. abaara 2dii duhurnimo ayaan Masjid Jaamaca weyne Hargeysa waxaan kula kulannay hooyo hamba cunaysa 2 ciyaal oo yararo isku nuuga inamaana sidata. kadib waxaan ku soo haybsanay inay haysatay inantaas ayaan ugu nimiday. haddaba anagoo adeegsanayna aqoontayada hooyadii waan xaal wareysanay. markaan hooyadii xaal wareysanay intaa kagamaanu tegin. hooyadii kumaanu qancin xaal wareysigeeda because qof kastoo baahan wax kastoo kuu sheeganayo is odhanaya waxbay ku siinayaan. waxaanu haddaba xog ka raadsanay amaan interview la yeelanay inaan soo wareysanay dadkii kaaga dhawaa goobahaas oo aanu u qaybino questions si su'aal aan weydiino anagoo mid u wareysanayna. kadibna markii ismaat gareeyeen ama ku mid noqdeen xogtii hooyaduna siinaysa iyo xogteena okay aan ku horeeyo su'aasheeda koowaad waxay tahay waxa aad doonaysaan waxa ahayd hal inan waliba daadeedu 13 jir ay tahay ka yartahay ilaa areada amba wixii ka hooseeya. marka dee family dhan baad hesheen markaa weeyaan soo ma ya cailadan hooyadeed iyo iyada ha marka ma cailadii oo dhan baad u samayseen hawshii laydin xil saaray qarashkiinuna imisoo ha laydin dhiibay
qarashka total ahaan loo dhiibay wuxuu ahaa $300 marka reerkii oo dhan intaasaad ku weyn may waxaanu qaadnay inkastoo yani labada beer aan kusoo koobi kari waay waxaan xareynay 2 kiis ama 2 hablood oo yar baan xareyn oo isku oo walaala ah may waxaan xareynay 2 hablood midna waxaan ka helnay jaamac midna waxaan ka helnay dardhiga meesha xabuubta abaar 5 galabnimo maamadaas aad ka qaadeen ilmo mise gabadh kale aad qaadeen maamadaad sheegaysaa maamadaas laba inamood bay wadatay inan yar marka inantii baad ka qaadeen kadib inantii waliba anagoo weydiisanayna anagoo muxuu ahaa counseling inuu sameynayna anagoo u sheegayna waxaan u qabanayno hooyadu waxay noo ogolaatay tiri labadan caruur ayna moodan xambaarsanay midna way xambaarsanay midna way waday igama maarmayaan marka haddaad waxay ugu qaban karaysaan inanta ama aad ii xareyn karaysaan ii xareey kadib saasay hooyadu counseling formkii noogu saxiixday noogu ogolaatay inaan inanta ka xareyno midda kale waxaa muhiim in la ogaadaa shuruuddan la siiyo waxayd gabadh yar iyaduna waxay haystay 2 yar oo inamood oo isku nuuga waliba markaana gabadha mar walba muhiimadeeda ahayd anagoo iyada laftigeeda maadaama ay hooyo dareen soo saartay inaan halka kaga tagin iyada laftigeeda aan wax u qabanay oo aanu siinay lacag yar laakiin aan ilmihii aan u baahnay si uu helo adeegyada u baahnaa ama daryeelkii loo baahnaa uu helo inaanu ka kaxaynay inantii yarayd oo geynay xarunta darbi jiifka ma laga yaabaa inaad kala qaarteen reer dhan oo wada darbi jiif ahaa baad ka qaateen inantii qura shuruudii la nasiiya ahayd gabadh yar mayaan waxaan odhan karaa waxaanu ka talinay farxadana family baanu ka talinay maya su-aashu waxa weeye maamada iyo caruurtuba ma hoylaa way ahaayeen hoylaan bay ahaayeen darbijiifka cayladu dhanba darbijiif ah cayladu dhan baa ahayd inanta ka qaadeen hooyadu waxay noo ogolatay inaan ka qaadno hooyadu yani waxay ku faraxsanayd inanteedu inay mustaqbal yeelato maadaama labada caruuri ka maarmahanyada marka xaggaad geyseen waxaanu geynay xarunta darbijiifta ee dawladda xukunta maxamed mooga ku taala inanta kale sideed ku heshay inanta kale iyadana barashanta galabnimo anagoo sidii ugu kuurgalayna marka horta waxaan isku eegnay budgetkana loo dhiibay iyo processka ay nooga baahan tahay in la maro processku waa in sharciyey wasaaradda aad ka sharciyeyso processka kalena waxa weeye xarunta maadaama xarunta dawladda wax xukunto aanu la hadalnay kuwii xarunta dadkii mas'uulka ka ah xarunta waxay noo sheegeen inaan wax badan looga baahnayn oo yani caafimaad hadday noqoto wax kasta hadday noqoto hadday cuntadii noqoto ay dawladdu ka faalo qaatay markaas ay nooga baahan tahay qura inaanu soo raacino waxyaabihii ay ku seexan lahaayeen kadib budgetkii markaanu eegnay waxaaba noo soo baxday inaan 2 hablood inaan 2 iyo 3 ku filnaysiin karno because waxaan u iibinaynaa service-kooda oo qura kadib meesha ayaanu geynaynaa maadaama xarunta dawladda gacanta ku hayso labada xarunta waxaan ku xariirinay maxamed mooge marka lacagta maxaad ku kharash garaysay kolay lacagtii isticmaalkeedu waxay wax loo dhibay $300 isticmaalkeedu horta waxaan isticmaalnay inaan u qabno 2 yar gabdhoodba maadaama aan wasaaradda meel toona xaruntii aan lacag naga baxaynin inaanu 2 gabdhoodba adeegyadii aasaasiga siino maadaama hin dad yar oo aan darbi jiif ay imika la geynay xaruntan waxa laga maarmaan noqotay loo iibiyo dharkii ay xiran lahaayeen surwaal dirac xijaab waxyaabahaas oo dhan marka lacagtii aan ku bixinay kolay waan kala qaadi doonaa waxaan iibinay 4 xijaab $200 baan naga baxay xijaabiga gacmoolayaasha bay haayeen 10 waxaan iibinay 6 waxaan iibinay dirac 6 dirac laftigood waxaan naga baxay $15 lacaga waxa kale oo iibinay surwaalo 6 surwaal $10 baan naga baxay waxa kale oo aan iibinay waxyaabihi kale xaalka ah maadaama taa nolol imika la abuurayo sida saamuunta jirka lagu meedhinayay shaambooyadii saliidii garfeedhii kareemkii waxyaabahaas oo dhan oo iyadana lacag $25 gaaraysa naga baxday waxa kale laga maarmaan inaan weydiinay xaruntii garaacnay maamulkeedii oo aan weydiinay maxal looga baahan labada caruuran keenayno alxamdulillah xaruntu waa xarun ay gacanta ku hayso dawladdu waxa jira agabkii ku seexanayeen oo kaliya taayaan idinka baahannahay agabkii waxaan iibinay labadii furaash waxaan uma baahnin barkimooyinka waxaan ka baqanaa inay isku ceejiyaan deeto waxaan iibinay $7 baan siinay 15 maadaama alaabtaas u baahan hambaagyo waxaan u qaadnay muddana ku jireen hambaagyo raandis le $7 ah waxa kale oo sameynaa laga maarmaan maadaama meesha ay tagayaan adeeg ay ka helayaan waxbarasho inaan 2 darsin oo iibina bugaagga iyo qalmaantooda iyo shandadii ay ku qaadanayeen waxa kale laga maarmaana inaanu medical check up ku sameynay taasoo laasima caafimaadku anagoo caruurtan guud ahaan hubsanayna iyo waliba cudurrada faafa ka hubsanayna waxaan xil iska saarnay maadaama caruur kale meeshii joogaan in haddii ilmahan wadna aanu bad qabin amba caafimaad qabin aanu aafaynin caruurta kale marka caafimaadkoogaan eegnay qalin quraankiina waanu iibinay maadaama hayn caruur inay hamile oo markii la wareysanay xitaa yidhahdeen waxaan doonaynaa car hooyada aabay xasha gelina quraanka iyo diinta baranno waxaan u iibinay kitaabo qalinkooga wato $50 midii waa maamulka ugu dhiibnay dharkii ciida laftirkeeda waanu iibinay uga farxinay taasoo adeeg baan ku qabanay may waxba namay raac waliba 20 baa soo haray 20kii soo harayna waxay ahayd 20 may soo harin wixii kala saan bay ahayd laakiin 20ka ka dhiman baan idin sheegaya lacagteeda xisaabta waan xisaabinay waxay idin hooyooyinka la siinay 10 iyo 10 maadaama awlaadna ka qaadano iyagana u baahan faraqabsi
ay weliba noo sheegeenna haddii inanta mid ka mid ay noo sheegtay haddii inantan yar ee ay haysata laga qaado oo daryeelkii heli lahayd oo dhan la siiyo iyada laftigeedu meelaha suuqyada wax ka soo xaadhan lahayd ay masaxaad geli lahayd laakiin imkiin habuu soo qaada carruurta ilaashata ma qaban karin waa mahadsan tahay ilmaha labaad gabadha labaad iyadna ma hooyaad ka qaadeen mise keligeed ba may hooyay lahayd marka labada gabdhoodba laba maamo haysta waad ka qaadeen ها لما ماما هيستا كقعدنا إيجا أنا دوني هرت مدن دبين قاعدة waxay maama doonaysa iyadu xitaa dawladda waxaan kusoo xidhayaa miyaad weydeen gabdho keligooda ها challenge baa naga hor yimid challenge-yada waaweyn ee naga hor yimanay waxay haayeen inaanay dadkan horta dadkan aan diiday inaanay jinsiyadeen ahayn sidoo kale inay haayeen kriteeriyada dib haygu noqonin okay bes waad ka jawaab markaa darbu chief may noqon karaan markaa darbu chief baa la doondoonaya soo maa darbu chief mayda ama darbu chief aad hesheen markaa mayde ها درب شوف مرة دان قفك هوي هيسني إن أنت عدينا يتهاي إن محل كل ذا يسحن شرتي صدق قد حاول تيسا أنت كي أكشوجنا حقوقه هانا أنك ورسنا حقوق رئيس لا يلا مياني درب شوف هاي قفك دانو هاي هيسن وحيابا كلام قاعدة وإن ده كلنا وحي هاي إن الحرم تلاقوا قالين قف أجاني بقى هاي صومالي إن ما مثلا أورجنايز إن ودن كيرنا بهر جيسبا بابلوش كدوم كدرب شوف ترجع كبلا ميال البوت كير صوت أو تاريخ هذا شيء ما تنتين واي ما تنتين أي جروب كده وإذا كنت أنت ما تنتين وإذا كنت أنت ما تفرسان كرتان ما تندين هاي ويسلون waxaa sidoo kale hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Beder oo iyaguna soo bandhigaya adeegyadii ay bulshada u qabteen بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحن سي شرف لو سلام يا جددان كوحكل الحكومة سي شرفت بلن يا أرضية تتمياش ماشي أنا قد عونية وحن هاي كوح درجة أو كسعتي جامعة بدر مر لبعض سو جدبتي وريق لبعض وحقبت كيجا ومركم وها إن أن كانوا إن ير ودربي تشيفه وأنا كسو هينو دحنتا يقدر يلا أنت هيسته كبعدي هلكا waxaanu ka dhaqaaqnay 6dii iyo barkii fiidnimo ilaa iyo 12kii habeenimo waxaan wareegaynay dhammaan meelaha laga heli karo darbi jiif meel ay seexdaan ayaan wareegaynay markaan ogaanay in ay waqtiyada dambe ee habeenkii la helo waan hooyanay waxaan soo kalahnay 4tii subaxnimo ayaan meel walba ka raadinay nasiib wanaag waxaanu helnay ayaan yar oo 6dii subaxnimo qarqaraysa dhaxani hayso baqa hayso oo markaa soo toostay kana soo toostay saldhigga weyn ee magaalada agtiisa darbi bartaa ku yaala ka soo toostay runtii xaaladaasi aad bay noo taabatay waayo inanta yar marka aanu aragnay waxaan ugu horeysan u qabanay wuxuu ahaa inaan dareenkeeda dejino baqahana ka biino gaajadii haysana aan ka biino cunto siino suujirkeedii diiramaad u helo dhaxantii wixii haysana ka baxdo marka inantii degtay waxay noo sheegtay oo noo xal warantay inay hooyadeed ku qasabto inay banaanka tagto oo waqtigaas waxa dhigay ay tahay in hooyadeed guriga ka soo eriday oo tiri soo noqon maysid ilaa aad keentid waxaan soo shaqaysid soo dawirsatid soo hoyan maysid ay tiri mar walbana saa ay ku samayso ay darbijiif saa ku noqotay xog fiican markaan ayaan ka helnay waxaan u gudagalnay in aan soo ogaano hooyadeed helno meesha degantahay helno nasiib wanaag waanu helnay waanu wareysanay xog fiican baanu ka helnay iyada kaliya kuma kaanin jaarkii baanu wareysanay jaarkii markaanu wareysanay xog buuxdayna siiyeen inay islaantu disho inanta yar kuna qasabto inay baxdo waqti aanu xataa qofka weyni socon karin labada habeenimo intay timaado waxay soo heshay ay keenta meesha kadib waxaanu hog buuxdo oo dhammaystiran oo dhinac walba marka aanu helnay baa waxaanu la kaashanay wasaaraddii si aanu dariiq qaanuuna ugu marno oo toos ah wasaaraddii markaan xogtii aan haynay la waraagnay waxay noo xaqiijisay xogta aan wadnaa in ay sax tahay oo sidii loo baahnaa ay tahay soo kale waxay nagu biirisay inay mas-uuliyad tahay ay nagala daba socon doonaan oo inay nagaga daba hari doonin inaan ilmo qaadano kadib waxaanu go'aansanay inaan inan yar oo mustaqbalkeeda fog iyo ka dhowba aanu ka talino inaanu qaadano waayo muddada la haynaya waa 3 bilood haddii u badnaatana waa 6 bilood kadib way soo baxaysaa si aanu markaa uga celino maxaan koray darbi jiif labaad ku noqoto ama intii in ka badan ay gaadho inanna waa biliso lama sheegi karada dhibta ay leedahay inan bannaan joogta oo weliba da'daa joogta oo 10 jir ah kadib markaan meeshii tagnay waxaan haddana sameynay inaan xog ka wareysano wadciga meeshaan ilmaha dhigaynaa siduu yahay waxaan ogaanay caruurta kalaba inaanay haysanin faraashii ay ku jiibsadaan dayactirna meesha uu ku socdo waxay nantii noo gudbisay meesha ka mas'uulka ahayd inaan waynala wadaagtay baahi jirta baahidiina sidii ugu dhaqsaha badnay intaanu ka karaynay waanu ka jawaabnay alxamdulilah intaasaan kusoo koobay anigu mahadsantahay marka su-aasha waxa weeye hal gabadh baad xirayseen ayaan baad xirayseen ayaan markaa hooyadeed ma idinla ogolayd inaad xiraysaan islaantu hooyadeed inanta yar danka ma laha
waxaan ogaanay midda kale wasaaradda markaan tagnay labada inamood ee ka waaweynba inay dibirjiifka jiifaan hooyadiin waxay ka dhigan tahay maaha hooyo ubad daryeelaysa runtii hooyadu haddii xataa gaajo jirto iyadaa ilmaheeda yar ay bugga gashataa ku filan hooyadini maaha hooyo usoo jeeda inay haysato ubad labadii ka waaweynaba maadaamay ku jiraan dibirjiifka markaan u geynay waxay tidhi anigaa isqaadi kala dan kameli yacni anigiibaa isqaadi kari lah kuwa kaleba waan soo saarayaa si ay iigu shaqeeyaan marka waxaan ku nidhaahnay tani waa caar waa inan banaankuuma joogi karto ma kuu haynaa ma kuu geynaa darbijifka ka haysto geeya bay tiri okay marka wasaaraddu way taqaanay miyaa wasaaradda markaan u geynay iyadaa noo xaqiisay inay labadeeda inamoodo darbijiif yihiin way yaqaaneen familiga marka familigu aabayo xumaan lahayn aabahood uu dhintay nin kale guursatay ninkii kale iyada iyo ilmaheeda yaroo hurdaan ku qaraacnay guriga waxaa xusid mudan ilmihii ay namadii naga horeeyey geeyeen meesha labadii inan mid ka mid ah baa walaalkeed noqday oo inamadii kale derbiga laga qaaday iyagana markaanu meeshii tagnay bay inantii iyo ilmihii yaraa isgarteen waa walaalahay bay tiri laba caruuroo kaba horeeyey ud xabaglayaal noqday baa meeshii kusii jira taas baa iyadna xusid mudan saad u isticmaasheen qarashkii laydin dhiibay qarashkii noo dhiibay waxay ahayd 300 360 waxaan u siinay gogol furaash barkin buste go-yaashii galkii la gelinayay 45 baadhid iyo dawooyinkii bay u noqotay boqolna dhar iyo shandad iyo alaabtii waxa inaan u baahnay baan ugu iibinay waxa u soo haray baaqigii soo harayna markii aanu baaritaanka u sameeynayna waxay leedahay inantu qanjo xanuun iyo egfishan yar marka waa inaad 2 wiig kadib soo celisaan saasaan ugu dhignay baaqigii soo haray 2 wiig kadib baa lagu celinayaa idinka haya baaqigii idinka haya ha anaga hayna waxaa jirta sanduuq lagu rido caruurta wixii loogu talagalay muunaan ku wareejinay gacanta ka saarnay inanta meesha ka mas'uulka sanduuqa iyada ugu riday marka intee laakiin lacagtaasi intee dhaneed 8 waxaanu kaloo ku darnay 196 aanu furaashada ugu iibinay caruurtii yarad markaanu aragnay meesha ku jirtay iyagaanba numbers badan qaadayno iyagii baaba caruurtii u baahnaa yani waxay ku seexdaan xaggaana 196 aanu furaashada ugu iibinay meesha caruurta darbijiifka aanu geynay waan ku darnay laakiin hooyada ilmaha yar dhashay ma hooy bay lahaayeen mise hooyaduna darbijiif bay ahayd hooyadu darbijiif maaha hooy bay leedahay bas ilmaheedii hore caydhsay iyadu waxay hurdaa meel diiran dhaxanna ma arkayso gaajana ma hayso laakiin inanteedii danka ma laha waqtigaas inay bannaan jiiftay maba danaynaysa aniga baataydii qaaday bay leedahay ay noogu jawaabtay waay su-aasha ka imaanaysa waxaa weeye waxaad tidhaahdeen 3 bilood ilaa 6 bilood oo badnaan baa lagu haynayaa goobtan muddadaas markay dhammaato miyaa laga soo saarayaa goobta meel ay ku noqonaysaa haddaanay jirin xataa hooyadeena dan kale saad sheegteen maxay tahay talow natiijada la rajayn karaa runtii markaan eegnay waxaan is eegnay bal horta ilmo keliyaata iyo dhowr ilmoodkeed ka bixi kartaan annaga markaan is eegnay ilmo keliyaataan ka bixi karna ilmahaasi maanta inaan meesha tagoon kaga imaado un meehayn hadafkaygu ilmaha mustaqbalkiisii baan aaminay markaan ogaaday 3 bilood ama 6 bilood keliyata meesha in lagu haynayo waxaan dabarnay 4 ama 5 meelood oo mawthuuq ah oo ilmahaas aan maxaan ku rahday geyn karo oo hadhow toole aan mustaqbalkiisa ku aamini karo kagana warhayn karo maxaa caddayn maxaa damaanad qaaday inay mawthuuq yihiin ama lagu kalsoonaan karo waxa damaanad qaadayta kow inaan maxaan ku rahday mid kastaaba ay diyaar u tahay inay korsato kow ay waalidkayna la garab taagan yihiin inay nala koriyaan soo kalena aan maxaan ku rahday taana awoodno oo aan intaan ilmaha hadday noo ogolaato gabadhu ay nootaay noo saxeexayso dawladduna ay maxaan ku rahday maxkamadda la adeegsanayno ilmihii saa ku qaadan karino taay waxaa keentay inaanan cid kale la aamino annaga u keenno innihii annagay hooye naga dhigatay markiiba markay na aragtay waxayna siisay kalsooni markaasay noogu yeedhay hooyo markaasna maya marka ma diyaar wada tihiin inay idinku aad qaadaan kayintooda u gashaan dabcan diyaar baanu laanno taa waxaa kuu cadaynaysa daba markaad caadifada ka saartaan markasta waxaan siinay mid kastaba nambarkeedaan uga tagnay waxaan ku nidhi garabkaa dambeeyaanuna way qaadatay markii ugu horeysay aragtay ilmihii agteeda ahaa waxay aanu ka dhinnay oo ay haystaan way nala soo hadashay maanaan islahayn inaan tayr hooy idinku odhanaysaa dareenkaasi noo soo tibisay waxaasaa naga maqan waxaa ii keena waan la balansanahay jimcaha dambe wax kasta u baahantoon ka tegay inaan ka dabageeyo mahadsanid ma tartanka darteed baa talow mise waa adala kabtabe taasi maad aragtay hadday tartan degteed tahay ma samayn karaba waayo maba dee mashaacirta intaa lagalma masiin waa mas-uuliyad culus xagga timeka ka warrama furaashadan baad soo iibiseen oo $196 ku bixiseen saad sheegteen gabadhaasaad soo wadeen ood meeshii geyseen 24 saacna waad haysateen soo maahan
inaan inanta yar u dhammayno waxeedu way noo dhammaadeen 24 saacadood okay waan gudbinay furaashyadii intaanu meeshii tagnaa naloo soo xoog warramay furaashyadii intaan kusoo noqonaynay aduu intaan iibinaynay iyo intaan geynaynay dee been ilaahay waa ka xaaraana tartan uma socdee waan way naga qaadatay eega anagu umanaan socon inaan wax kale ku darno marka hore inanta un baanu waxeeda dhammaystirnay meeshii markaanu tagnay baanu baahi aragnay ilmihii yaraabaa markii la geeyey annagu aanu u geynay inantii yarayd wixii ay sitay bay carruurtii kale yidhahdeen annagana dhar baan rabnaa kan baan rabnaa qof ilmo kastaa wuxuu dareemay inay wax naga heli kara annagiina wuxuu soo bandhigtay baahi inantii waxay nala wadaagtay xog ah ay u baahan tahay oo ka dhiman meesha sida tababarayaal maadaama oon macallimiin nahay annagu inaanu macallimiintii meesha dari tababar u siino marka xogta meesha ka timid awgeed maalinkii dambe ayaan u dhammaystirnay arrintaa mid kale jirta sababtay u timid maya mid baa jirta dowlad baa gacanta ku haysa meesha sababtay u timid baahidu waxa weeyaan dib habeen baa lagu waday dib oo habeentaa darteed baa baahida keentay laino iminka way waday mahadsanidin labada laakiin hooyaa laga qaaday gurubna gabadh keligeeda hooyada tuurtay iyo xiray waa mahadsantihiin waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka caawa su-aashii joogtada ahayd baan labadiina group ba idin weydiin lahayn kulley xoogaa hordhacna iga ahaatee su-aalaha laidin weydiinaya gabagabada waxaa ka mid a maxaad isleedahay waad ku guuleysan kartaa oo tiimka kale kaga badin kartaa caawa maxaad se isleedahay waa lagaaga badin karaa badanka waxaa muuqata gruubyadu inay ka yaro hortegayaan inay sheegaan wax lagaga badin karo taasi laga yaabaa inayna tusin karto inaana idiin muuqanba meelahaad ku liidan kartaan waayo cid dhamaystiran haba yaraatee ma jirto marka aynu isdifaaca yarayno haddii aad si xaqiiqa og tihiin say wax idinku dhaceenna si xaqiiqa kooban baad nagu sheegaysaan su-aashii joogtada ahayd habeen kasta eedan weydiinayna waxaa weeye anoo ka hormaraya tiimkii hore ee taakulo ee hargeysa university ka socday maxaad isleedihiin caawa waad kaga guuleysan kartaan waad kaga badin kartaan tiimkan idinla tartamaya maxaase isleedihiin waa laydinkaga badin karaa horta koowaad waxaan isleeyahay maanta waad ku badin kartaan waxa weeyaan laba hablood yar oo derbiga seexanaya maadaama hablo cawran yihiin ay habla yihiin ana kafaalo qaadnay xarunta geynay sidoo kale waxay aan isleeyahay waad ku badin kartaan laba hooyo oo labada hooyoba ogol yihiin labadooda caruur labadooda hablood meel maraan oo yacni noqdaan laba hablood oo waraabiyo dee dhibaato walba ka hoyday inaanu labada hooyana ka farxinay oo aan farxadooda ka shaqaynay waxyaabahan isleeyahay maanta waa laidinkaga guuleysan karaa hortay labada tiimba shaqaa loo dirayo dee shaqadii waa la qabanayay horta qadarta ilaahay maan sheegin laakiin anagu waa nalaga guuleysan karaa qadarka ilaahay waa nalaga guuleysan karaa laakiin waxaan aaminsan xitaa haddii nalaga guuleysto waxaad isleedahaan u baahan qadarka nagu dhig maxaa laga guuleysan karaa nasiibka iyo qadarka nagu dhig shaqada adigu ka hadal maxaad isleedahay waa laga guuleysan karaa maadaama inaan hooyo ka kaxeeyo ilmaheedii inay ahayn laakiin haddana anigu waxaan ogahay in hooyada farxadeedii ay dhammaystirantay markaan ninteedismali yani qadar ilaahay maad caawin kartaan wax laydinkaga guuleysan karaa miyay jirtaa wuxuu sheegtaa wuxuu waad sheegtaa inaan hooyo ilmaheedii ka kaxeeyay taas waa guushi kaliishiina taasay ka okay tamam amaadsantiin haye isla su-aalahaas labada ah ayaan u wareejinaynaa kooxda rajo ee ka socota Badr University bointiga u weyn waxaan isleeyahay markaan ogaanay ilmaha muddo lagu haynaya meesha inaanu anagu inantiyareed mustaqbal dheer u ta'miininay oo dee muddada markay soo baxdo aanay derbijiifkii dib ugu noqonayn labo markaanu anagu tagnay xaruntii aanu aragnay inay meeshii baahi ka jirto inaanu isku intii karaankayaga ahayd isnidhi baahida awda saddex inantiyareed inayna siisay kalsooni buuxda oo dareen fiican ay qaadatay aanu kaga farxinay istiri maanta 3 garab baa ka dambeeya haddii noqdo dacaf loo imaado run waa run oo ilaahay baa kaamil wax kaamil ma jiro labina laba qof kama wada qosliso haddii lambaris la eegayo lambariskaan iminka dhegteeda kusoo dhacda un baa nalaga qaadi karaa inay laba xereeyeen idina mid xereyseen mahadsantiin haye hadda guddidu waxay ku dhawaaqaysaa ciddii tartanka ka hadhay ee laga badiyey bal aynu eegno waay bismillahi raxmaan raxiim waxaynu joognaa habeenkan caawa ah guntiga gabagabadii tartamayaasha barnaamijka labada group ka kala socday labada jaamacadood ee kale ah Hargeysa University iyo Badr University intaana natiijada ku dhawaaqin guddi ahaan markaan qiimeynta wadnay waxaa noo muuqata in ay yihiin labadii group ee aad iyo aadka iskugu dhawaa tartankooguna aad iyo aadka u adkaa
natiijadooduna ilaa xad haysa saarneyd aad iskugu dhoweyd taas waxay tilmaamaysaa shaqada wanaagsan ee labadiina tiimba aad qabateen haddana sidii la sheegay waxaan ku qasbannahay in au midna hadho midnaha ku sii jiro tartanka oo wareegga kale u gudbo sidaa darteed caawa gruubka tartanka ka hadhi doonaa waxaa weeye kooxda taakulo ee ka socota Hargeysa University inaad ku ambalaysaan baan rajaynaynaa Maya.